السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سو دواده markale barnaamij kale iyo Kista TV barnaamijkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa laba arrin oo aan rabo in aan kaga hadlo arrin waa arrinka arrimaha tahriibka kadib markii aan daawaday video shalay social media ama baraha bulshada wareegayay oo tusayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo tahriibtay oo saxaraha Liibiya meydkooda ay wadada ku tuurayaan kuwii wax tahriibinayay iyo gabdhihii oo gaariga wali saaran oo oynayo oo de wiilashii isla socdeen oo hadda gaariga isla saarayeen oo meyd ah banaanka lagu tuurayo arxan darrada halkaas taala ayaan rabaa inaan insha Allah taala ku fiiriyo qaybta labaadna waxaan ku fiirin doonaa xiriyaha qaxootiga ee Dadaab oo laga soo warinayo in nimankii magafayaasha ah intay u daateen dhalintii ay soo tahriibinayaan aan ku bilaabay videogan shalay wareegayay social media ayaa waxaa ka muuqata arrin murugadeeda leh dhalinyaro Soomaaliyeed oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo soo tahriibay ayaa waxaad arkaysaa in laba wiil oo wiilasha ka mid ah ay dhinteen labadaas wiil oo dhintay hataa si fiican looma xabaalin oo islaamnimo ku jirto wadada qarkeeda ayaa lagu tuuraa inta gacanta la soo qabtay lugta iyagoo meeyda meeshaasana looga tagayaa videogan waa video naxdintiisa leh murugadiisa leh dhalinta Soomaaliyeedna aan rabo in ay aragto ogaatana in waxa ka soo horeeya ay arxan laawayaal ay yihiin dalkoodana ay iimaansadaan waxay u qoran in aysan weyneenin taas waa mid labaad waxa arkaysaa gabdhihii Soomaaliyeed oo wiilashan la socday oo gaariga wali saaran xaaji qamsiinta oo oynayo iyagoo aan rajal aan lahayn meesha ay u socdaanna aan garanayn waxa lagu sameyn doonana aan ogeyn arrinkan waa arrin macnaha uu itaabtay that's the reason ka aan sababta aan wax uga sameeyay walaalaha tahriibin dad fara badan baa wacyigelintan bixiyay dad saxaraha soo maray oo Ilaahay ka soo badbaadiyay oo la wareysanayo aniga nafteeda waa daawaday qofkii aqli leh fakarayo uu garan karaa dhibaatada meeshan taalla iyo waxa ka soo horeeya laakiin hadda iyadoo video ah I don't know sida loo soo leak gareeyay videogan ama uu usoo baxay laakiin iyadoo video ah oo ay nimankii wiilashii meydkooda banaanka ku tuurayaan wadada saxarahan uga tagayaan si waraabayaasha iyo maartay ruwaaga iyo bahlada ay uga dhargaan ba arkaysaa daawanaysaa gabdhihii oo oynayo iyo rajo xumada halkaas taala marka bal videogan horta ila daawada marka hore okay sida halka idinka muuqata videogan waxa uu tusayaa intii aan hadda idin sheegay inaan idinku soo celiyo uma baahnidin laakiin halkan ku qoos qaata dhalinyaroy halkan ku qoos qaata waxa idinka soo horeeyo waa wax noocan oo kala ah taas waa mid qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlano waxa waaye journalka The Star ee Kenya ka soo baxa ayaa waxa uu sheegay in booliiska Garissa County ay bilaabeen in ay baaritaan ku sameeyaan dadka soo tahriibiya oo magafayaasha u soo gacan galiya dadkan ayaa waxay booliiska ayaa wuxuu sheegay in uu ku daba jiro dhowr qof oo qaxootiyada dadka ka soo tahriibiya una soo gacan galiya magafayaasha jooga Liibiya waxay sheegeen dhalinyarta u dhaxay da'dooda ee u dhaxayso 15 ilaa 24 oo ku nool xiriyaha qaxootiga oo loo sheego in nolosha ay ku jiraan nolol ka fiican ay geyn doonaan in ay u sheegaan in ay Europe one day tagi doonaan oo noloshooda ay isbedeli doonto ayaa waxaa la sheegay in dad ay ku daba jiraan oo agents ah oo dadkaas oo soo tashkiiliya dhalinta yaryar oo intay basaska soo saaraan gawaarida lacagna ku bixiyaan soo qaadaan dadkaas dhalintaas soo qaadaan oo ay keenaan ilaa Liibiya kadib markay keenaan magafayaasha gacanta u galiyaan dhalintan ayaa waxaa la sheegay in qaababka loo tashkiiliyo ay tahay marka hore markay target ay helaan qof ay raadinayaan ama qof dhalinyaro oo ay maskaxda ka xadi karaan oo brainwash ay ku sameyn karaan waxa ay u sheegaan baa la yiri waa sida journalku uu qoray waxa ay u sheegaan in waalidkood ay ka qariyaan arrinkan markay isku soo urursadaan oo ay koox isla helaanna
in telefonaadka ay ka qaadaan si booliiska bay yiraahdeen uusan usoo dabagal ugu samaynin dhalintan waxaana la sheegay in dhowr wado oo kala duwan la mariyo haddii waalidka uu dareemo in cunugi ka maqan yahay booliiska markuu waco booliiska badanaa telefonaadkooda iyo waxooda ayay ku dabageli lahaayeen laakiin telefonaadkii way ka qaadaan baa la yidhi si booliiska uusan usoo trace garaynin waxaana ay sheegeen in dhowr wado lasoo mariyo ay jirto dhalintaas ayna il gooniya u leeyihiin sida Dadaab oo kale Garissa Moingi Nairobi halkaas iyo Busia ay ka geliyaan Sudan ama South Sudan waxa kale oo ay sheegeen wadooyin dhowr wado ay hadda ay xaqiijiyeen booliiska il goonina waa u leeyihiin dhalinyaro fara badan oo basaska saaran hadday arkaan in shaki uu iman karo waxa ay raadinayaan in qofka agentiga ah they already way figure out gareeyeen qofka ay raadinayaan laakiin weli gacanta unbaysan ku soo dhigin waxaa la sheegay in dadka Kenyaanka masaakiinta ah iyagana sidaas oo kale loo soo dhoofiyo oo dalka loogu soo dhoofiyo dalka Libya Chad Libya Sudan ama South Sudan waa meelaha dhibaatada ugu faraha badan ay ka dhacdo soo qaxootiga naftooda waxa rabnaa inaan insha Allah taala ay gelinta ka qayb gelino oo aan u sheegno okay haddii Ilaahay wax kaaga qoro meeshan ama Europe ama Mareykan ama Canada waa imaanaysaa haddii calaf aad ku leedahay waa imaanaysaa oo bariiskaaga inta ka qoran yahay naftaada inaa haligto uma baahnid dhalinyaroy naftiina ha haligina Libya waxa yaala waad ogtihiin waxa Libya yaala in kiliyahaaga iyo beerkaaga iyo wadnahaaga laga ganacsado haddii lacagta reerkaaga ay bixin waayaan qarash baa kugu soo baxaya nimankan ku soo tahriibinayo qarashkaas markii ay ku galiyaan oo Libya ay gacanta ku soo saaraan magafe iyaga waxooda way qaadanayaan magafe ayaa markaas wuxuu galayaa hawshiisii aad taqaaneen in qofka reerkiisa deen la geliyo la dhibaateeyo qaaraan iyo balaayo iyo waxaysan ka bixi karin in la geliyo haddii laga waayana oo reerkii iyo reer saboola marka horeba qaxooti iska joogay waxaa dhici karto in lafahaaga lagu qamaaro oo beerkaaga iyo kiliyahaaga iyo la gato dowladda Soomaaliya iyada nafteeda dadaal kuma yara hadda dowladda Kenya ayaa ka hortagaysa arrimahan laakiin dowladda Soomaaliya nafteeda dadaal kuma yara asbuucii la soo dhaafay 150 qof oo dhalinyaro ah ayay soo celisay tan iyo markii dowladdii Farmaajo ee hore dhowr flight oo Libya dib looga soo celiyay baa jira dhalintan markay arkeen in beeraha lagu falanayo in la adoonsanayo in kiliyahoodii iyo beerkoodii la gadanayo in familiyadoodii dhibaato loo geysanayo waxa ay ku oynayaan oo ay dhunkanayaan dhulkoodii hooyo markii lagu soo celiyo asbuucan hadda saan idin sheegay dowladda Soomaaliya dad bay soo celisay oo dhalinyaro ah oo xabsiyada ku jiray Libya hadda ka horna couple flights oo horaa jiray oo la soo celiyay hatta Hindiya kuway ka soo celisay dowladda waa uga mahad celinaynaa dhalinta in maaragtay loo dhimriyo oo la soo celiyo oo dalkoodii lagu soo celiyo iyagoo noolba haddii loo tago oo ay weliba bad qabaan xabsiga abaroon weli magafaha xabsiga waa ka duwan yahay maalin kasto waxaad maqlaysaa dooni baa qalibantay dhalin Soomaaliyeed baa ku dhimatay dhowr boqol oo qof ah sida doonta hadda gadaasheeda ka muuqata oo kale badda ay ku qalibantay waxa marka jirta dhalinyaro naftiina soo haligina Yurub wax yaalo ma leh kulli dhageysan meesaan waxaad leediin idinka ma ka timaadaan haddaad meesha waxba aysan oolin Yurub wax yaalo ma jiro walaal ha tahriibin Yurub waxa waaye markaad timaadana sharci la'aan iyo guri la'aan iyo qabow iyo homelessnimo ayaa laga dheefaa haddaad timaadid wixii ku qoran ma waynaysid laakiin naftii halige ha noqonin videoga hadda soo daawateen aan idin la wadaagay waxay idin tusaysaa arxan la'aanta meesha taala iyo naxariis darrada dadka qaxootiga ana jaaniskooda way heli doonaan insha Allah taala laakiin in ay naftooda haligaan uma baahna marka intaas ayaan rabay inaan ku darsado kadib markii aan daawaday videogaas naxariis darrada ah oo cabsida ah waan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh